marka labaad agaasimayaasha guud iyo madaxda hay'adda IOM iyo dhammaan marti sharafta kale iyo wakiilada kale ka socda wasaaradaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta launchingkii barnaamijkan CD4 D2 phase 2 inaan kasoo qayb galo barnaamijkan sida agaasimayaashii guud ee igu horreeyay ay sheegeen madaxda IOM ay sheegeen waa barnaamij loogu talagalay in looga faa'iideysto qurbo joogga aqoonta ka soo kasbaday wadamada dibadda inay waddankooda hooyo u soo celiyaan runtii waa barnaamij aan isleeyahay waa barnaamijyada naadirka ah ee isku xidhaya diasporaha Somaliland ee wax soo bartay iyo waddankoodii hooye ee Somaliland si ay u wada shaqeeyaan aad iyo aad baan runtii hay'adda IOM ugu mahad celinayaa sida fiican ay noola shaqeeyeen waxaa kaloo u mahad celinayaa dowladda Holland oo runtii dowladihii kale Yurub ka dheereysay oo kaligeed arrintan wada aad iyo aad baan runtii idin ugu mahad celinayaa ka wasaaradda gaadiidku wasaarad cusub weeye gaadiid ahaan uma cusbayn laakiin wasaaradda hawlaha guud ee cilmi ka socdaana laga soo jarayo wasaaradda cusub baan ahayno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu 2018 gaabo saaray marka annaga cid walba uga baahi badnayn consultants nala shaqeeya maadaama wasaaradda cusbay fayskii koobaad waxaanu nagala shaqeynayay 3 xubnood oo xubinta koobaad ay ahayd HR-ka nagala shaqeynaysay dib u habeynta shaqaalaha labada xubnood kalena waaxda liisamada iyo waaxda planning-ka nagala shaqeynayay waxaan oran karaa runtii intay wasaaradda tareen way yar tahay cid tartay xagga khibradda iyo maamul hagaajinta iyo isku dubaridkii oo dhan laba sibay u tareen mar waxa weeye shaqada waxa hagaajiyay qofka dibadda ka jooga وسيد كوبادة عكتر خلاص شقديو قفك طاعونا يا أرك يا خلك كده كنت شراء وحلا جاي من الخلط بدن أرك وأمرك اللي بعدنا ضد وحي هاي خبرة له وضمه هرو أمريكي يميد ورهنتي كرني environment كنا environment كسر شقيي لبعض السبب إنه عاوية أدي أدبر هنتي يعني هم هذا اللي يجري إنه بدينا جلش شقيني مشروع عن قيمة لبعضنا إن شاء الله تعالى ونوصي بهني ما أنت سمعنا وحنا بهنت institution building إن وساردوه iyo hay'aduhu ay dhismaan way soo dhismeeyeen badan laakiin waxaan u baahanahay in modern face u gudubno wajh horumar oo casri ah oo dunida la jaan qaaday institutionskeen oo dhan ay u gudbaan barnaamijkana taas uu kaabaya oo wax ku taraya aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad ku mahad celinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.